Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaa mar kale u ciyaarayaa qof kale. Qofka dabcan waxaa ugu ciyaarayaa akoonkeyga maadaama akoonkeyga mar walba protected uu yahay oo sidoo kalena lacagaha aad ka deposit gareysto cryptona aad kala baxo oo lacag walba la baxaayo iyo cadad walbo wax cilada aysan iiga imaaneyn. Sidoo kalena si maalinle ah check up ugu sameeyo. Tusaale kale hadeertan muhiimada muuqaalka xitaa waxaa ka mid ah halkan qaybtan setting-ka sida kuu muuqato waxaa ii saaran calaamad cajib. Calaamad cajibka sababta ay ugu saarantahay waxay tahay daqiiqado ka hor update marsiiyay application-ka. Haddii application-ka aad mar walba update marsiin dhibaato kugu noqonaysa. Waxa kaliya oo dhiman waa number-ka. Number-ka hore number linked iigu ahaa, number-kii ayaa bedelay, number kale inaan ku xiro darteed hadeertan la iigu soo qorayaa muxuu ahaay setting-ka qaybta. So marka akoonkan hadeertan 100% lacag walba deposit gareeyay, lacag walba withdraw gareeyo si toos ah kala bixi karaa. Wax security team ah oo igu dhagaayana ma jirto. That's why aan u doorbiday in akoonkeyga ugu ciyaaro. Yarkan waxaa ugu ciyaarayaa $4,000 oo hadda balance-iga ku jirto. Waxaana wada gaarnay go'aan ah in every single day $2,000 uu helo. So marka laba mid u kala qaadayna. Waxyaabaha ani hadeertan inta badan ku shaqeeyo laba qaybood waay. Waa mid istiraatiiji ah iyo mid signal ah. Signalka dadka waa la share gareyn karaa oo waa bari karaa dad xadidan sababtoo ah haddii dadka dhan wada baro waxay noqonaysaa in application-ka wax badan laga bedelo oo haddaaba cilado fara badan ku arkay akoonada dadka markaa ku ciyaaro oo security team inta badan ugu dhagaayo. So marka qofka u baahan in muxuu ahaay wax badan uu waxaan ka fahmo signaalada iyo istiraatiijiga si toos ah maalin walba video ugu soo sameeyaa usoo dhigaa. Laakiin waxa aad si toos usoo dhigi karin waa signaalkana dabcan haddii aad soo dhigo midda koowaad linkiisa dabcan la socdo oo YouTube-ka dabcan igu dhagaayo oo YouTube-ka ma ogolo linkiis muxuu ahaay meelo kale ka yimaaday oo ama Chrome-ka ama meelo kale ha noqdaan in dadka loo jiheeyo oo rulka YouTube-ka ay qabanayo oo waa sababii YouTube-kayga hor hawada uga baxay oo kale. So marka haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato muuqaalkan qaybihiisa dhexe ama qaybihiisa dambe waxaa soo dhigi doonaa Telegram userkeyga @ibros_t25 ku qoran. Userka si toos haddii aad copy u dhahdo ama ugu qorto Telegram-ka si toos ah u helaysaa contact nadiif ah oo aniga la soo hadli karto oo si fiican waxa ugu fahmi karto. So marka hadeertan yarkan $4,000 waxaa rabaa per day maadaama $2,000 kaaga sameyn karaa dhahay as a strategy. Markay signal noqoto $4,000 laga sameyn karaa laakiin signalka time uu baahan yahay. So marka isagana wuxuu ku qancay in 2,000 si daily uu u helo oo $2,000 u sameeyo sidoo kalena anigana commission-keyga halka ka helo maadaama aniga waqti wixii ku bixinayo xirfadeedana ay tahay. So marka waa isla arki doonaa hadeertan waxa bilaabaya in uu ciyaaro game-ka gudagalaya $4,000 waxaa rabaa in $6,000 u bedelo kadibna commission-keyga aan shaqeysto. $4,000 nadiif ay ahayd laakiin ana dabcan $175,000 extra ka dhigay. Game-keen koowaad hadda bilaawday ila soco. mar kale ku laabaneynaa markaan waa qasaarna dabcan mar kale ku laabaneynaa mar kale qasaarnay mar kale ku laabaneynaa mar kale ku laabaneynaa hadda $3,000 oo nadiif ahaaya waxaa meen isku jira $1,000 $1,500 meen isku jira ilaa 2,000 profit-ka aan rabay waxaa meen isku jira $3,500. It doesn't matter waa kasoo kabanaya 100% waa huba. mar kale ku laabaneynaa mar kale hadda ku laabanay
almost هذه 6,000 دولار هنا take winning 4,300 دولار hadeertaan si automatically u haya weli toole 2,000 ee qofka a kula balame maana gaarin midda koowaad muuqaalkan xitaa inaa khasaaro waa ugu talagalay sababaha ugu talagalana waxaa ka mid ah marka koowaad qofka haddii uusan iska jeegareenin gameska ugu horeeyo dadka qaar waxaa laga yaabaa muuqaaladii markay daawadaan ibrosano sameeyo kale inay isdhahaan ay khasaaraan soo marka waxaa ugu talagalay muuqaalka intii ka horeysay in qofka markii uu muuqaalka daawado isaga oo aana dabcan gameska iska jeegareen haddii uu ciyaaro in maanis ay ku imaan karto soo marka hadeertaan waxaa kuu balan qaadayaa ad 4,300 ahaaya waxaana yarka ku balanay inaa 2,000 dollar profit u gaaro soo marka 2,000 profitka inta aana gaarin ka hor $1 ma khasaari doono $1 anoo khasaarin 2,000 samee doona muuqaalkii la soco marka kaliya waxaa khasaari doonaa lacag $400 ah oo 4,000 ka koreyso yarka lacagtiisa ee 400 ah $1 xitaa kama khasaari doono ila socoya tagwiina dhaha almost laakiin waqtiga ay ka dhamaaday hadda 4,000 dabcan ku laabtay $1 4,000 kama khasaarayo mararka qaar anoo tagwiinin taabanayo aa ka daahaya sida hadda igu dhacday gameka horeeye $235 waa ku laabtay 4,000 si nadiif ah meesha u taalaa sida ku muuqata almost hadda 600 ahaaya 4,000 weli maana ka hoos marin sida ku muuqata marnabana ma dhacaysa inaa ka hoos maro 2,000 waa sameynaya hadda $5,000 oo nadiif ahaaya yarka balanta ah ku wada galnay 2,000 ee bardhiga inaa u sameeyo kaliya $1 ka dhiman hadeertaan waa joojinaya marka inaa muxuu ahayd si ciyaaro 2 game 3 game hadal wadaya hadalkaana inaa wax idinku fahansiiyaa rabaa $4,000 dabcan ka soo bilaabay 4,000 anoo muuqaalka ama gameka aan iska eegin istiraatiijigiisii qaabku u shaqeynayo waa iska galay waxaana ugu talagalay maadaama dad badan muuqaaladeeda ay daawadaan dadka intooda badan qofkan wuxuu sameynaya waa sameyn kartaa inay isdhahaan ee sidii ay sameeyaan ay ku khasaaraan oo kale soo marka waxaa diyaar u noqday inaa lacagti gubo si aan muuqaalka sharaxaad buuxdo oo qofka wax ku fahmi kara uga bixiyo waxaa dhacday inaa 1,600 gaaro waxaana balan qaaday inaa targetkeyga kusoo laaban doono markii targetkeyga aa kusoo laabtay waxaa kuu sheegay gameka mar walba aa rabto istiraatiiji ahaan inaa lacag kaga sameysid 5 game ilaa 6 game inaad daawato si aa uga hesho fikrad buuxdo oo lacag aa ku sameyn karto hadeertaan yarka balanta aa ku galnay $2,000 ee bardhiga ah kaliya $300 ka dhiman $5,732 ahaaya $268 ka dhiman $268 waa gaarsiinayaa welibana aniga oo khasaarin 4,000 oo hal mar aana khasaarin kadibna waxaa shaqeysanayaa lacagteeda commissionka ah ee aa ku lahaa oo xitaa iyadana dabcan gorgortan iyo war lahayn oo dabcan aa ku wada balanay marnabana aa ka hoos mareynin sidaa kuu sheegay 4,000 ka hoos maraya laakiin inta kale sidaa raba ugu ciyaari karaa oo waa lacagta dabcan ani hadda aa shaqeeyay marka inaa hadalka joojiyo gameka foxed ka dhigto waaye weli toolamaana gaarin yarka targetkiisa hidgareynaya kadibna commissionkeyga ka hadlaya intuu yahay hadeertaan waxaa sidaa halkaa kaaga muuqato $6,000 inaa gaaray 4,000 yarka dabcan ka qaaday ee dabcan akoonkeyga ugu ciyaaray 2,000 bardheyga
ugu talagalay inaa every single day labadiisa kun oo dollar ugu sameeyo waa sameeyay $6,145 halka ku jirto $6,145 isaga iska leh $4,000 oo investment ah iyo $2,000 oo berdayga ah waay soo marka hadeertaan ani commission ahaan meeqa u lahaan karaa maadaama qofka isaga uu faa'iidaya $2,000 ani commission ahaan commissionka qofka dabcan mar walbo waa ka wada hadalnaa meeqa rabtaa qofka asaga ku dhaayo maadaama qofka aad shaqeynaysa aad tahay mar walbana waxa fiican inaa qofka garasho leedahay qofka kuma xiro intaas commission ahaan kaaga qaadanaya kaliya waxa ku dhahaa meeqa ka go'do hadiiba intaas aad sameyn karto commissionka wixii 2,000 ka badan ada iska loo qofkii dhahaa laakiin si aan risk u gelin maadaama waxaan ay yihiin muxuu ahayta wax marna la qasaarayo marna la faa'iidayo istiraatiiji si loogu socdo waxa ku dhahaa niyahow 2,000 profit ka ah marka aad hesho ani commissionkeyga commission macquul oo aan igu filan oo dabcan aan risk gelinin aan mar walba ka sameysanaya without risky si uu risk u imaan sababtoo ah 60,000 20,000 50,000 100,000 waa loo bedeli karaa laakiin haddana probability loss keena aad u badanayo si probability loss keena uu u badan marka waxa ku qasbanahay bahalkan inta maalin walba lacag uu naga cun lahaa in inaga lacag si tartiib kaga cunno sababtoo ah hal qof uma ciyaaro dhowr qofood oo ciyaara hal qof commission yar hada ka helo qof kale commission kala ka helo lacag fiican ay noqonaysaa qofkiina lacag fiican oo dabcan mar walba qasaari jiray oo every single day oo passive income uu faa'iideeyaa soo marka hadeertan 6,000 si nadiif ah u haya waxa shaqeysanaya $1,000 ee commissionka ah walibana $1 ma ka qasaari doono $5,000 kama hoos mari doono dabcan $6,300 hadda haya $387 waa commissionkeyga inta doona ku shaqeysanaya marka walibana anigoo $1 dabcan lacagta qofku uu leeyahay ee 60,000 ah aana taabanin hada dabcan waa qasaarnay game kala ku laabanayna ina gameka foxet siiyo waaye si hadalka uu igu yaraado si hadalka hadii uu bato gameka foxkiisa iga lumaayo تجوين علينا almost أنا هذا كوميشن ها وحقوه يستا $650 كليه وحاجة دي من $600 $650 يجي من جيم كان عن رواينا كويت جرايو almost وحا هذا سيدا كويت جرايو $7,000 akoonkeyga dabcan aan ugu ciyaaray oo Binance-geyga lacagtan ka soo deposit garay $4,000 ah soo marka maadaama aan gaarnay $7,000 $2,000 ee qofka si passive income ah every single day uu u heli lahaa sameeyay commissionkeygana sameeyay waxa ku qasbanahay automatically in dabcan sameeyo withdraw dabcan akoonkeyga waa lacag fara badan aan dhaxmaro it doesn't matter withdrawga tagayna crypto ku bixinaya waliba soo marka lacag waxa jirto crypto dabcan ee u qaadanayso charge ahaan 7,000 halka ku hareyso Tron USDT dabcan lacagta inta badan ku bixiya kono deposit gareeya oo isaga igu fiican laakiin lacagta ugu yar ee la bixi karo $52 waaye maybe dadka qaar inay ku adkaato soo marka hadda waxa bixinaynaa 2,000 yarka iyo $1,000 ee commissionka aw lahaa $3,000 commission ahaan meeqa naga gooyeyso adiga lacag badan aa gooyeyso $3,134 $3,000 oo nadiif ah isoo gaareyso soo marka almost copy link yaa leeyahay oo addresskeyga mar copy aa soo dhaxday inta muuqaalka bilaabanin automatically confirm timer ay qaadanaysaa successful hadeertan halkaan ka arki kartaa almost hadeertan $3,134 baxday laakiin 3,000 iyo jajab yaraan soo gaarayo labadiis kun almost EVC ahaan ama Premier Wallet ahaan nooc doona dabcan loogu dirayaa hadeertan akoonka $4,000 ku soo haray waxaana ku ciyaarayaa akoonkeyga ee ku qoran tahay dabcan Ibrahim oo magacayga saxda ah oo akoonka ku ciyaara laba akoon si sax u leeyahay oo waligoodna aan lagu dhigeenin
kiribtana lacagta ka bixiyo kiribtana aan ka withdraw gareeyo. soo marka waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo u baahan waxaan inay lacag ka sameeyaan haddana qaladaad fara badan ku dhaco. hore waa kugu sheegay bahalkan haddii lacaga yaryar ah ku ciyaartid mar walba isagaa teeg lacagtaada u qaadanayo oo si daily ah lacag kaaga qaadanayo. soo marka ani xitaa haddii aan ku caawin karo waxaa ii habboon anna waqti inaad iga lumin adna waqti aad iska luminin. $50 qof ka yar wato xitaa yuusu ila soo hadlin sababtoo ah anna waqti badan iga baxaayo isagina waxba kama faa'iidayo sidoo kalena wixiina dee signaalkii strategic isma keenayaan. laakiin ani waxaa waa 100% sidoo kale waxaa sameynaya group private ah ka oo dabcan signaalka aan ku bixin doono maadaama signaalka YouTube soo dhigi karin oo kaliya hadda waxa YouTube soo dhigi karo uu yahay strategy. soo marka qofka u baahan in waxaan wax uu ka fahmo ama contact ila sameeyo ama raba inaa uu ciyaaro ama raba isagaba inuu ciyaarto oo signaalka barto it doesn't matter waqti walbo oo dabcan Janice uu heli karo wuxuu igala soo hadli karaa Telegram userkayga oo dabcan muuqaalka qaybihiisa geeska soo dhigi doono. marka haddii aad daawashada kugu wareejin channelka waxaa si shumad leh kaaga codsanayaa inaad jalka subscribe saarto. waqti yar hadda qaadanaysaa lacagta weli toole Binance maysa gaarin marka withdraw dhahdid daqiiqada kadib ay Binance gaaraysaa laakiin automatically account-kayga way ka baxday oo hadirtan halkaan ay ku jirtaa qaybta withdrawga ah. withdrawga tagayna laakiin 100% way soo gaaraysaa oo waa account-kayga waa mar walbo. marka haddii aad u baahan tahay inaad wax badan ka fahanto ama haddii aad rabto inaad ku ciyaaro waxaa igala soo hadli kartaa Telegram userkayga. marka haddii aad daawashada kugu wareejin channelka waxaa si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad jalka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadana aad la wadaagto waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.